السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان walaalaha Soomaaliyeed ku soo dhawaada kanalkeena Tasheeg. Maanta waxaan soo bandhigayaa qisadii asxaabul Kahfi. Gaaladii reer Quraysh oo tagtay Yahuudda waxayna weydiiyeen maxaan ku sameynaa nin sheegtay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Kadibna Yahuudi waxay tiri waxaad weydiisan saddex arrimood oo kala ah dhalinyaro la waayo oo meel ay qabteen la garanayn. Nin dhulka beeray ruuxdiisa. dabadna gaaladii reer Quraysh ay yimid nabiga oo weydiiyay saddexdii arrimood. Nabigana wuxuu ku yiri bari ayaan ka warramay laakiin waxyigii muusan niman nabiga kadibna gaalada ay u baridii nabiga oo weydiisay inuu uga warramo saddexdan qiso balse nabigu wuxuu ku yiri bari ayaan ka warramay markay gaadhi dhowr casho aan waxyina ku soo degay nabiga ayaa xataa muslimiinta yaabeen is weydiiyeen muxuu u soo degi waayay waxyigii kadibna ayaa soo dajiyay ayadan ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله حكودهن شيء قاسم فلي بري أدوردهن حدود دون أبى maalintii dambe ayuu nabigu ku yiri insha Allah bari aad ka warramaya markaas ayay soo degtay qisada asxaabul Kahfi dul qarnayn iyo ruuxdaba waxa jira dhalinyaro rumeeyay Ilaahay waxaana dhalay boqorro deegaankoodana wuxuu ahaa deegaan gaaleed oo caabudo sanamyada iyo Ilaahay oo cid kale la wadaajiyo dhalinyaradan ismay garaneynay mid waliba waxa uu qarsanayay iimaankiisa dadna maalin ayaan qomkooda u baxeen ciid ay lahaayeen balse cid mid kasta oo dhalinyarada ka mid ah wuxuu muujiyay cudurdaar waa inay ka hadheen qomkooda dhalinyarada ayaa isugu yimid geed hoostii markaas baa mid ka mid ah kacay oo yiri kuwaasi waa qomka nagi waxay caabudeen sanamyo eebbe ka soo anaguna waxaan rumeynaa eebbaha abuuray samooyinka iyo dhulalka mana caabudin cidaan isaga ahayn waxa eebbe isku xidhay qulubtoodii oo isku raaceen inay eebbe keligii caabudaan dhalinyaradu waxay go'aansadeen inay ka fogaadaan qomkooda oo hay kale yeeshaan god deegaankooduna oo ahaa buurale ayay ka doorteen god ku yaalay markaas bay galeen godkii oo aqal ka yeelanaya waxaad qiyaastaa caruurtii boqorradu dhaleen oo ka fogaanay ehelkooda oo gaalaha kana yeelanaya hoy god aan la garanayn wax kaga soo bixi doona markii godkii galna ayay jiifsadeen kadibna eebbe ayaa ku soo rogay raxmadii naxariistiisa waa inay seexdeen waxayna hurday 309 sano waxaad arkaysaa qoraxda oo markay soo baxdo u iilan xagga midig ee godka markay dhacaysana ka goynaysa xagga bidix iyagoo ku sugan meel waasic ah oo godka ah subaxa iyo galabtii ay qoraxdu qabenaysay si ay uga helaan fitamiinada daruuriga ah oo jirka haas ahaatay xilliga duurka qoraxdu maysan qabaneen waxaana culimada dhaqaatiirtu sheegeen in qoraxdu ay halis badan tahay xilliga duurka sida awgeed ayuu nabigu naxariisin galkiisa ahaatay yiri qiilu fa inna shaytaana la tuqil warqiilulaysto qeyladu hordada xilliga duurka sababta ah shaydaanku xilliga ma seexdo saxiix albani way ku yaalaa xadiiskaasi dhalinyarada ehelkoodii way raadiyeen oo waxa la galay baadigoobkoodii laakiin maysan helin ay way ka quusteen kadibna arintoodiiba faaftay in la waayo dhalinyaro meel ay qabteen aan la garanayn dhalintii huruday ayaa aabe subhanahu wa ta'ala u gedgedinay midiga bidix si hadii qofku uu arko uu ugu maleeyo inay nool yihiin iyo in aan jirkooda dhulku cunin waxaad moodaysay inay soo jeedaan haddana way hordeen xitaa culimada tafsiirka qaar baa yiraahdaan dhalinta indhahooduna way furnaayeen aygoodina wuxuu albaabka hurday isagoo fidiyay dhudhunkiisa hadii aad aragto waad ka jeesan lahayd adigoo cararaya waana argagax lahayd cabsi darteed eebbe waxa uu siiyay haybad ay makhluuqaad kale kaga argagaxaan garaan xayawaanka ugaarsadaa dhalintii waxay godka hurdeen muddo dhan 309 sano jiil ka dambeeyay waa dhinteen mucjisada tiradan ku jirtaana waxaad kaga booqataa maqaalkan maalinta dambe ayay hurdadii ka kaceen waxayna isweydiiyeen imsa ay hurdeen markaas bay dhaheen maalin barkeed ma oga inay hurdeen 309 sano dadna waxay dareemeen gaajo markaas bay mid ka mid ah dhalintii u dhiibeen lacag ka samaysneed fido qalin kuna dhaheen inoo soo bixinto iskana ilaali qomkeena sababtoo haday in ogaadaan in rajminayaan ama diintooda ay nagu ciliyaan wiilka ayaa baxay isla markiiba waxa uu la kulmay dunida oo isbedeshay cimaaradihii iyo guriyihii oo bedelan iyo sidoo kale dadkii aan ahayn kuwa yaqaaneen kadibna waxa uu tagay nin iibinaya cunto markaas uu ku yiri lacagtan qaado oo iga gad cuntada ninkii wax iibinayay ayaa la yaabay lacagta wiilkan watay dabadna wuxuu u geeyay boqorkii deegaanka boqorkii baa warsaday wiilka oo wadiyay halka uu ka yimid iyo lacagtan halka uu ka keenay boqorku warkooda wuu hayay in dhalinyaro la waayay muddo 309 sano ka hor ah wiilkii ayaa uga muramay inay shalay seexdaan godka isaga iyo saaxiibadii iyagoo ka cabsanay qomkoodii boqorkii ayaa ku yiri shalay meedan seexanin ay waxdu hurdeen 309 sano wiilkii isagii oo yaaban ayuu u yimid dhalintii kale dabadna warkii ayaa uu sheegay inay hurdeen 309 sano dhalintiina way cajabeen markay xaqiiqsadeen inay hurdeen muddo aad u dheer ayay eebbe mahadiyeen dabadeedna eebbe ayaa ruuxdoodii ka qaaday dhalintii isla hal mar
halkaas bayna ku geeriyeen. Dadkii ayaa yimid godkoodii waxayna heleen dhalintii oo geeriyootay. Markaas bay albaabkii godka saareen dhagax, kadibna waxay isku khilaafeen inay godka dushiisa ka yeeshaan masaajid. Asxaabul kahfi waa la isku khilaafay tiradooda. Qolo waxay tiri waxay ahaayeen 3 wiil iyo eygoodii, kuwo kale waxay dhaheen waxay ahaayeen 5 wiil iyo eygoodii, sidoo kale waxay dhaheen waxay ahaayeen 7 wiil iyo eygoodii. Hasaatee tirada rasmiga ah xoog Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxa kale oo la yaab leh in eyga iyo muslimiinta agtooda ka ah nijaas in Eebbe subxaanahu wa tacaala quraan ku xusay, sababtoo wuxuu ku rafiiqay dad wanaagsan. qisada asxaabul kahfi waxaad ka akhrisan kartaa suuradda 18aad ee lagu magac daray qisada waa suuratu kahfi aayadaha 9 ilaa 26. Waxa uu ku yaala godka asxaabul kahfi. Godka asxaabul kahfi meesha uu ku yaala khilaaf badan ayaa ka jira. Waxaa la sheegaa inuu ku yaalo wadamada Turkiga, Suuriya, Yemen iyo Urdun. Sanadka markuu waa 1963 ayay dowladda Urdun sheegatay in godka asxaabul kahfi ku yaalo Urdun, ayagoo ku soo bandhigay god la yiri waxa ku aasan 7 qof iyo ay Ilaahay baana og. boorka kadinka laga galo godka kadibna godka Allahu a'lam masjidka dhow Allahu a'lam. sawirradani waa sawirro muujinaya godka iyagoo qadiimi ah. maanta qisadan aad soo bandhigay walaalaha Soomaaliyeed halkaas ayaan ku joojinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.